السلام عليكم وبركاته كل دوعا أو ونحسن أنا جو محمود عبد دعر waxaa barnaamijkan idin soo diyaariyay Somali Network Group maanta waxaan halkan ka qaadan doonaa cashar ku saabsan TeamViewer kaasoo ka caawinaya in qof kale computerkiisa ah gasho in aad ka caawiso aduu ka hadlaysan computerka in aad feeral ka soo qaadato in aad sawirro iyo wixii la mid ah ka wada qaadato in aad haddii software ama mataqaana antivirus ay u shubeysa ama computerku ka hadlaysan oo mataqaana adapter soo qaadan lahayd oo kale aad mataqaana install ugu sameyso waxay la mid tahay adoo computerka ay ka tago computer kale galay tan waxaa barnaamijkan uu sameeyay dhalinyaro badan oo mataqaana ay soo weydiisay barnaamijyada aan ka bixin jirnay casharada oo ahaa software-radii package-da Cisco kuwaas oo mataqaana ay configuration ku sameeyeen waayeen iyo in laga caawiyo marka barnaamijkan adduunka meel walba aad ka joogto wuxuu ku sahlayaa in aad qofka u baahan tahay computerkiisa aad dhex gali karto ka caawin karto laakiin waa adigoo adeegsanaya software kaleeyada TeamViewer waa la soo koobiyeysaa hadda halkan waxaad ka arkaysaa oo malaynaa waxaad tagaysaa Google aan idin soo dhaweeyay waxa halkan ku qoraysaa click TeamViewer ayaad ku qoraysaa kabacdi waxaad tagaysaa halkan downloads ayaa leedahay automatically uu ku imaanayaa download now anigu igu download gareysay uma baahna inaan hadda mar laba computerkayga mar labaad aan ku download gareeyo aan u soo laabto desktopkayga waxaad arkaysaa waa desktopkayga qofka hadduu u baahdo inuu desktopkiisa quruxsado akhrisan kara software waxaa jira oo mataqaanaa real desktop la yiraahdo oo soo download gareysanaysid wuxuuna kugu shaqeynayaa sida 3D-ga soo u jeedsanaya waad arkaysaa aan filayaa desktopkayga so beautiful good hadda u baahan tahay sawirkan waa soo qaadanaysaa that's good as me meeshiisa ku celinaysaa nice hadda u baahan tahay soo dhaweysanaysaa waxaan rabnaa in aan kicino TeamViewer ujeeda waa kanaan halkan qofka waxaad u qoraysaa URL numberkan ayaad u qoraysaa marka koowaad waxaana siinaysaa passwordkaaga passwordka marka aad siiso qofka passwordka mar walba uu isbedelaa si automatically hadda haddaan galo mar labaad ma geli karo qofka aan computerkiisa galo aan gala passwordka uu isbedelaa qofka asoo passwordkan haya computerkaaga ma soo gali karo marka hore waa inaa ID numberkaaga soo siisaa passwordkan aad soo siisaa hadda laptop dhinac yaal ayaan geli doonaa waxaan leenahay marka ID inta ku qoraysaa connected ayaa leedahay connected marka wuxuu ku soo bixinayaa passwordkii waxaa ku qoraysaa passwordka qofku leeyahay 13511 login ayaa leedahay oo iga diiday okay mar labaad ku celinaa passwordka 23531 waa automatically ayaan u galay PC-gi kale okay that's beautiful kana arkaysan waa desktopkayga kan kalena waa desktopka laptopka kale waxaan ka bedelaynaa mataqaanaa background-ka dambe ee laptopka soo uu qurxanaado okay that's beautiful good waxaad u baahan tahay inaad ka soo qaadato picture sida aan ka aragno hadda picture-kan Somali flag ayaa ku qoran ama another pictures kale oo mataqaanaa ku jirto waxaad tagaysaa file transfer ayaa leedahay desktop meesha desktop ku qoran waa desktopkaaga kanna waa remote computerka aad gashay desktopkiisa waxaad usoo degaysaa dhanka hoose adoo ka dhex raadinaya picture-kii aad rabtay inaad ka soo qaadato waa soo dooranaysaa education sawirro badan ayaa ku jira good Somali flag waa kana Somali flag kaliya ayaa ku siinaysaa kor ayaa tegaysaa receive ayaa leedahay kaliya isla markii hore kaaga diray okay waxaan ku soo laabanayaa
desktopkayga waa kana waxaan u malaynaa inaad aragtaan picturekeeda ay taan soo dooranay oo kana aha Somali flag Somali flag. That's good. Sawirka waxaan kasoo qaadanay computerka kale waxaan ku laabanaynaa haddana mar labaad laptopki kale waxaa haddaa rabta inaad video mataqaanaa ku jiro computerkaada ama computer qof kale ah kasoo qaadato hadda waxaan tegaynaa computer stack waxaa tagtaa videos real play waxa ugu download galaysan arkayna okay waxaan iska adeeganayna waa laptop kale oo qof kale leeyahay ama kula jooga ama wadan kale jiro meel walba jiro mataqaanaa download stack okay waxaan kicinaynaa this video maxaa kasoo dhexmari so good haddaa u baahantay inaad kasoo dirsato videogan kale waa kasoo dirsan kartaa iska xirna kanne haddaa computerkiisa gudaha waxa uga baahantaa oo kale qofka waxaad tegi kartaa f oo kale maxaa ugu jiri kara Windows Service GBs good Windows 7 nashiidooyin halkan ugu jiro folders wax walba u baahantaa qofka waa kasoo qaadan kartaa yaan kana iska xira PC-gaagana waa kana PC-ga qofka mataqaanaa aan ku jirno another computer ka isticmaalayna waa kana waxaa rabta ku samayn kartaa haddaa rabtid waxaa ka geli kartaa internetka adoo isticmaalaya Google hambalay okay halba ugu baahan tahay inta ku qoraysaa Google Images okay halba ugu baahan tahay isticmaal internet ka jiri kartaa kuma waxyaabo ka soo qaadan kartaa that's good aan soo laabano desktopkaaga haddaa rabtid inaad qurxsato ku aragteen oo malena sida mar hore idin sheegin uu kugu wareysay 3D oo kale so beautiful cashirkeena maanta intaas ayuu ka eegyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo waxaan idinka tegaynaa Somali Network Group